maleeshiyaad KCC Khartoum oo tilmaamay in la wareegeen deegaano hor loo ka tirsan gobolka Sanaag iyo sidoo kale deegaanka biyo guduud oo ay sheegeen xilliga inay ka samaysteen talis cusub oo military qaba imika in dawladdu inay dhacday oo siiba oo aad la ii dhacay oo maxay heetoy airportka wasiirka duulisiga hawada aan wax allaala wuxuu ii qabtay aanay jirin lay hoosaasiyay anagu waxaan uga fadhinaa wasiirka duulisiga hawada oo waliba musalsal ugu soo daynayna $240,000 haddaad u keeni weydeedadii wii kasta miidiyadan ku fadhi السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة وهذا صاحب بيال ملك استاكو سجنتي ومركل كل ما ينقو منهن يباهنتين عوشنمو وهذا أنا كلام كود أجنب جودهان با قد بدأ هو وين جودهان بود بيروك الصومالي ده يا عالم كبار. سورة وهذا صاحب بيال قد بدأ عاو برامج كنا عندنا تكو صاري دونه وحوجو وين دعي لو جستة هو يلا جناح ستة كو سجن مجال ده هرجيسة هاي جستة ما كعدان كاي حب يأرد معاك صخور لي معاي ستة دليلها كسر نقولنا ku aadan Soomaaliland laamaha ku shaqada leh arintaasi ay dayaceen nabadda ceerigaabo iyo xaalkeeda oo warar cusub ay ka soo kordheen ayadana sidoo kale diiradda saari doona Soomaaliland ma waxay sii doontaa maxaabiista ku xidhan magaalada Hargeysa ee laga hayay qolada huwanta ah qodobka ayadana diiradda ayaan ku ifin doonaa dhaqdhaqaaqyada ciidana ka soo kordhay deegaanada Shangeed iyo waliba sidoo kale gobolka Sanaag isagana diiradda ayaan ku ifin doonaa aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu gaaray Yurub xildhibaanada uu hogaaminayo Cali Xaamud Jibriil oo ku sugan qaaradda Yurub ayaa gaarsiiyay baarlamaanka Yurub qaraar iyo codsi ku saabsan aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland saaxiibay qodobada kuwa kale ayaan rogi doonaa inta ay ku jirno qumanaheenan caawa ee soo dhawaada hase yeeshee inta ka horeysa laba qodob qodobka waa dad ugu cusub lagu soo biir hadda hore noo jirtay muuqaalka sheer gare inta markaad samayso muuqaalkan aan kula wadaagayo waa masaajidka Badweyn kama tagayna khayr ee xasuusino فضلاً كقيب قاضي وذي كران كاغا والد كاغا ينفط هذا وبيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكلمة مسجد كي بدوين هالكاسو مرياه فيسكي هراء وحين سوى قاري شنكم بيهايين شنتي كن صدح كل وحين نقطي رابطي للسوداد دلق سوى قاضي لما كنا واحد لقو سوى إليي دل وكورة وحي يقول كبرنا رجح إيو عيد إيو وحي ويعني بيصوت بيجلد سقابته وعنو هينا كل عنو هينا يقول جنا كاسو مريا مؤمنين تي محسنين تي هرب بيبتي إلى هاي ميزانك حسنات كهو صارا هو الضمبنا يعني إلى هاي حسنات كهو يعني ميزانك حسنات كالله صارا هل كاسو مريا يعني وحي قرحنا كل وهو هينا wixii qurxina iyo wixii dhisbaa iyo wixii hadii laba ku rooyahay way noo arsan yihiin walaalayaal markaa waxa loo baahan yahay in hadii laba ku rooyahay wixii soo dhiibtay Ilaahay baa deeyaaniga u qoray annaguna ballan baan Ilaahay ula galay inaanu wixii dadka islaamka ay muxsiniinta ay muuminiinta ay soo dhiibteen inaanu masaajidka u galino wixii noo soo galay waa galinay wixii aan haynay wixii kale waa galinay wixii hadii laba ku dhiman dadka muuminiinta ah ku sugaynaa si degdeg ah oo yacniga magaalada qorax iyo kaliil baan haysa iyo roobabawna nagu soo dhow yihiin waxa la doonayaa waayaan inaa si degdeg ah aynu hadii laba ku gacanta u saaro ardi ku noqdo lambarka waxa ka soo baxaya aad wax ku diraysaan masaajidka Badweyn ama mustajaaca magaalada Badweyn waayay saaxiibayal soo dhawaada maalintii shalay toole magaalada Hargeysa waxa ka dhacay habeenkii maalintii shalay toole arrin fool xun baa ka dhacday arrintaas waxay daaranay laba nin oo Georgia inay ka soo jeedaan aan u malaynayo saan ku arkay baraha bulshada ayaa dhac u geystay mid kamid ah hooyooyinka ganacsatada ku sugan magaalada Hargeysa hooyada ganacsatada waxa laga dhacay dahab 300 iyo waxoogaa 300 iyo dhowr iyo 40 gram meelaha sar oo u dhiganta $240,000 labadan ina dhacay waxay ka dhoofeen airportka magaalada Hargeysa haddaba maxay yihiin waxyaabaha Soomaaliland seegay ama dhalilaha dulooganaya laamaha arrinta ku shaqaday horta hooyada masaakiinta la dhacay marka hore Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay xaqeeda inuu soo burburiyo hooyo muwaadinada tiri laba caruur agoon baan haystaa laba caruur kala duwan oo laba agoomood baan koriya hooyo xoogeeda maasho xalaal miirada dhac fool xun loo geystay hooyadaas markii dhac loo geystay waxay ku eeratay laamihii dawladda
ama sirdoonka ha noqoto ama ha noqoto airportka iyo laami socdaalka ku shaqada lahaa sida ay warbaahinta u sheegtay hooyadaas waxay sheegtay markii hore in liid waxba lagu qabanaya laakiin markii dambe aan waxba loo qaban haddaba Somaliland arrintaas ama laama ku shaqada leh dhowr qodob oo arrintaas daaran oo seegay bay isku taageen waa marka waqti nimankan Georgianka ama cadaanka ay wax dhacay dalka markii imanayeen si fay ku soo galaan dalka cid baa keentay laama ku shaqada leh cid ay soo xidhaan haddii iyagii la waayay in ciddii dalka keentay ee ay u shaqeynayeen ama u adeegayeen la soo qabto horta way seegtay airportkii عشان بريد اللي بقول قبل عياك اللي قالوا في كريم وين أنت أنت على قبل الرسول اللي قالوا هذا نوع سكت مرلباتك إن ما كانوا دور ساعة واحد تراسكوا هاي دبي بيتراسكوا هاي سيابا بدل بلوح إني بكريم عالم كمان هلو وقصنا يلا وقصنا مرة دي توه وحدي وحصاد عنو عدين تهدي الهاي سيابا بدل بلوح إني بكريم تانا دلال كيدي سي اي نقطي مويان مايما ككاري تهدي بدبا تانا قده waxaa jira waxyaabo fara badan oo raad fara badan oo wax laga tixraaci karo oo ay u horeyso nimankan dalka sida ay ku soo galeen cidii ay ku soo degeen dalka cidii keentay shaqadii dalka ay ku soo galeen oo qabanayna maxay ahayd cirka kama soo dhicin dalka sifa ku yimaada sifa sharci ah tahriibka kuma soo gelin halka raad raac ba laga sameyn karaa taasina adigu qod ku shaqada lahayd waa seegtay ama ahaan Somaliland in dhac inta laga inta la geesto gudaheeda lala maro riboodada laga dhoofan oo sumcad xumo lama arrinta ku shaqada leh inay tallaabo qaadaan ayaa waajib sidoo kale kama hadlin hooyadii markaa maanta warbaahinta la hadasho waxay sheegtay inay aaminsan tahay in xukuumaddu dhacdayba bal muuqaalka hooyada aan wada daawano hooyada masaakiinta marka dareenkeeda saaw eegay yani culayska haysta iyo dhibaatada haysta horta wax kasto ay tuunto ama ku hadashaa xaq bay u leedahay ma helin gacantii ay dawladnimadeeda ka filaysay hooyo ganacsata cashuur bixiye ah dalkay u dhalatay iyo magaaladeedii iyo caasimadeedu lagu dhacay jawaabtii ay dawladnimadeeda ka filaysay kama helin marka inay sidoo iyo siyaabo kala u hoosto xaq bay u leedahay arrintaa waxa ka soo wareegay ilaa 24 saacadood mala ka soo wareegtay weli xukuumaddu arrintaa kama hadlin mas'uuliyiinta shaqada lahaa sababtay uga aamuseen arrintaa uga hadli waayeen waa calaamad su'aal dawladda inteeda kale tallaabo inay qaadaano hooyada ay jawaab waafiya siyaana oo mid meesha u taala maxaa ka dhalan kara arrinta waxyaabo badan baa ka dhalan kara sumcad xumo qarankeena iyo dalka iyo dawladnimada ka dhalan karta dhibaatooyin kale ayaa ka dhalan kara مشاكلات فرا بدن ما كايمان كرا سكورت كيني سمعد حما ku dhacday ba kaymanaysa airport keeni oo la canjarifaya kaymanaysa waxaas oo dhaliila inta ku shaqada inay ka jawaabto oo waliba suuq fariga jawaabta waa waajibaadka saaran waayahay inta qodobka ku dheeraamay dadka ka soo noqon magaalada Ceerigaabo shirkii nabadda ka socda shirka nabadda habeen hore waxaan sheegnay ama xalay toban barnaamijkeeda hore ku soo qaadan kooxaha huwanta inay sameeyaan midab xumayn fara badan waxay markaa yiraahdeen qoladii warsangeli waa la afduubay nabadda qasab lagu yeelsiiyay waxyaabo noocaas hadda qodob labaad bay soo kordhiyay qodobka labaad waxa weeye in maxaabiista Hargeysa ku xidhan la sii deeray hore waxaan ogahay propaganda maxaabiista ku saabsan oo suuqa la geliyay baraha bulshada la geliyay in Somaliland dhibaato weyn ka soo gaadhay haatan waxa jira warar fara badan oo propaganda ilaa xal baraha bulshada lagu qoray wararkaasi waxay sheegayaan in beesha warsangeli arrinta nabadda ay ku xidhay maxaabiista Hargeysa wararka ayaa faafinaya waxa faafinaya kooxaha huwanta oo soo gaarsiinaya bulshadeen si bulshadeen arrintaas isku dhac dhexdeena u yimaado marka horta doorkii nabadda hore uga hadalay laakiin doorkan ka hadlayna waxa weeye Somaliland ma maxaabiis ay sii deynaysa ba jirta
horta arrintaas meel ogaalkeena aynu ku ognahay ma jirto waana fariin ka imanaysa kooxaha huwanta ah waxaanay doonayaan in kacdoona dhacaan sidii maalintii hore maxaa la gudboon xukuumadda xalay waxaan sheegnay xukuumaddu inay uu hooseeyo meeqaamka wacyigelineed ee nabadda sidoo kale xukuumaddu uma diyaarsana fariimaha ka imanaya huwanta inay jawaabo ka bixiso oo dadka dhagahooda warka beenta ee lagu shubaya ay ka saarto maalintii hore foolxumadii dhacday iyo dhibaatooyinkii dhacay waxaa sabab u ahaa war ka yimid dhinaca huwanta oo 7 cisho baraha bulshada haysta caawa warkaan idin sheegaya waa hordhac waxaana ku ololeynaya kooxaha huwanta ah Somaliland waxa uu taallay inay ka jawaabto arrintaas arrimaha noocaas shacabka in laga saaro dhagahooda oo aan shacabka la kicino haddii shacabkeena cid kala maamusho waa mushkilad arrinta maxaabiistu waa arrin ay shiyo culus oo taagan arrinta maxaabiistu waa arrin adag markastoo arrinta maxaabiista lasoo hadal qaado waa in dowladdu ay dadka shacabka dhagahooda ka saarto warka la gelinayo oo wixii jira iyadu ay u sheegto dhanka kale waxaa jira warar fara badan oo laga faafinayo deegaanada Buuhoodle ama deegaanka Shingeed ilaa iyo jiida Sanaag Bari iyo Salinta kooxaha huwanta waxay ka sameynayaan yacni propaganda iyo barnaamijyo inay wax weerarayaan ciidamo magaalada Laascaanood ka soo baxaya kuwa kale oo deegaanada imanaya waa la soo weeraraya ka kaca propagandada fara badan haddaad aragtaan iyagu jeedinay sidii caadada inoo ahayd waynu baranayo walays gudaha baa jira hebel oo idinku la ciidamo ka baxay Buuhoodle jiida Buuhoodle in Cumar Cami ka haysta marka buuqa gudahooda ka jira say u damiyaan waa inay sameeyaan propaganda Soomaaliya baa soo weeraraysa culays baa jira dharaaya socda waayo xaaladda jiiduhu waa nabad dhibaatana ma jirto madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waa soo hadlayna wuxuu soo hadal qaaday in difaaca qaranka ay diyaar u yihiin taa u biqimeynayna bartaas inaga baandhay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo hogaaminayo gudoomiye Cali Xaamud Jibriil iyo xildhibaano kale oo ku sugan qaaradda Yurub waxay dhambaal ku saabsan oo dhambaal qaraar gole ah gaarsiiyeen baarlamaanka Yurub qaraarkaas oo daaran aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ogeeyay iyadoo xagga Mareykanka albaabada itiraafka albaabada Mareykanka raacaysa imika waxay garaacaysaa albaabada Yurub hore ayaynu carabta iyo meeshaan cagta u soo marin sanadkan waa sanadihii Soomaaliland baa soo socda baan u malaynaya marka ayagana waxaan rajeynayaa insha Allah warqadda ay gaarsiiyeen baarlamaanka Yurub in war wacan uu ka soo baxo xildhibaanadaas muddooyinka u dambeeyay xukuumadda qaaradda Yurub haddana waxay la kulmeen midowga baarlamaanka midowga Yurub ay warqadda gaarsiiyeen waana qaraar aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliya lagu codsanay halkaan war farxad leh ayaa ka soo niiniyay saaxiib guud ahaan baqmareen intaas ayaan ku soo gabagabeynaa habeenkan caawa dad nagu cusub tafadal ugu soo biir xadad hore noo joogtana muuqaal si sheegare tan iyo noo kulantay soo dhaafno salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh